habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka guntanka wararka waxaan ahay Isxaaq maalin qodobada barnaamijka caawa aad ku daawan doontaan waxa ay kala yihiin Ra'iisul Wasaare Roble oo sheegay in xukuumadda ay qaadayso tallaabooyin si degdeg ah loogu gurmanayo dadku ay abaaruhu saameeyeen waxa kale oo barnaamijka guntanka wararka caawa qodobada aad daawanaysaan qayb ka noqonaya faahfaahin ka soo baxaya dagaal ka dhashay raashin la gubay oo geystay dhimasho iyo dhaawac shacabka magaalada Muqdisho waxa ay sheegeen in ay dhibaato xoogan ku qabaan hanaanka loo mar qaadista canshuuraha in ka badan 280 qoys oo laga soo masaafuriyay ama laga soo barakiciyay magaalada Laascaanood oo xaalad nololeed oo aad u liidata ay ku haysato duleedka magaalada Muqdisho xildhibaan Dalaxa oo sheegay in jaamacadda Carabta ay soo dhaweysay go'aankii maxkamadda ICJ waa go'aankii ay Soomaaliya ku guuleysatay badda ay uga guuleysatay Kenya qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka caawa u diyaar garooba barnaamijka oo intaas ka faahfaahsan markale kulan wanaagsan daawadayaal caawa waxaynu ku bilaabaynaa Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda xilligan ay diyaar u tahay in si degdeg ah loo caawiyo dadka ku dhibaataysan oo abaaruhu ay ku haystaan deegaanada maamulka Jubbaland Bismillahir Rahmaanir Rahiim alxamdulillah wa salaatu wa salaam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmaciin marka hore waxaan soo dhaweynayaa wasiirka maaliyadda Bayle wasiirada caafimaadka Fawziya وزير الدولة حفيظ رئيس الوزراء عبد الحكيم أشكر يبيع حفيظ محمد إبراهيم هل كان محمد سجون نمت سيدي أن أمد الصومالي دو شيء لهن إن مانت لو جرمدو عبارت عدك إكتاجن دولة قبلتك جبلان دجامة هوستجا حقيقة دي رواق النسوق رائد أيو أسر ريا هرنا وان أوجه الله سادرتيت وحان مانت جو أنصرني إنان بالله درجلينا كرن وقادنا sidii aan uga qayb qaadan lahayn badbaadinta shacabka Soomaaliyeed ee ku tabaalaysan deegaanada hoostaga Jubbaland oo ay saameysay abaarta aad u xun ilaahayna waxaan ka baryayaa in uu ummadda Soomaaliyeed abaartan uu ka qaado waxaan rabnaa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan degdeg loo gaarsiiyo wixii mucaawina ah iyo wixii dhaqaale ah hadduu alle idma berri ama berri dambe sidoo kale waxaan shacabka Soomaaliyeed ka codsanaya inay u istaagaan garbahaas qabsadaan ay contribution-kooda kaga qayb qaataan sidii abaartaas dadka ay saameysay gacan looga geysan lahaa runtii dadkii xoolihii waa ka baaba'een biyo la'aan baahsan ayaa jirta sidaa darteed halkan waxaan rabaa inaan baaq uga diro hay'adaha samafalka ee qaramada midoobay iyo dhammaan beesha caalamka inay sida ugu dhaqsiyaha badan ugu soo gurmadaan dadka ay aafaysay abaarta ee deegaanada iyo gobolada ay hoos tagaan dowlad goboleedka Jubbaland aad ayaa u mahadsantihiin billahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi shacabka magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in dhibaato xoogan ku qabaan habka canshuurta waa canshuurta guryaha laga qaado waxa ay sheegeen in hanaan wanaagsan loo marin qaadista canshuurta guryaha tan yarayno saldhiga la soo dadku lagu soo xareynayo ciyaalka iyo naagayo umula lagu soo xareynaa qaar kamid ah shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir ayaa si weyn waxay uga hadleen hanaanka loo maro canshuuraha laga qaado guryaha waxayna tilmaameen in dhibaatooyin xoogan ay ku qabaan hanaanka noo maro canshuuraha laga qaado guryaha waxayna tilmaameen in dadka milkiilayaasha guryaha lagu leeyahay canshuurta balse aan lagu lahayn dadka kireystayaasha ah waxayna carabka ku adkeeyeen dadka kireystayaasha in dhibaatooyin xoogan ay ku qabaan isla markaana caruurta iyo haweenka la geeyo mararka qaar saldhiga iyagoo aan loo faahfaahin waxyaabaha laga rabo waa kuwana qaar kamid ah shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir oo aragtidooda ka hadlaya canshuurta aniga laga qaadayo aniga marka input sameey importina ay sameeyso ama marka laga qaado wax gelin aniga qasada wax ku shubo qasadi dib inay wax iyagu anfacdo wax iyagu qabato bariyahan waxaad moodaa xaaladdu inay saas ahayn sababtoo ah ani marka mulkilaahay guriga qofka ku degan uu yahay kireysta kirada lagu malahan ana liigu leeyahay markay timaado degmadi ama waaxdi ama laanti markay timaado waxa xaq hoos saaran qofkan guriga degan in la yiraahdo warkaale qofka guriga iska leh magaciisa nasiib numberkiisa nasiib annaga wacanina aniga la soo wacdo xaq ma ahan awlaad masaakiina iyo dad masaakiina oo gurigan degan canshuurteena waajib ku hayno kireysta in inta la taxaabo saldhigyada la aadiyo xaq ma ahan sadarteed waxaan leeyahay waxaan arkaa warqadda aniga la keenayo oo invoice-ka wax cadad oo ku qoran ma lahan qofku waa fiirina wuxuu rabo isaga qoraa
xafiiska ay ka soo baxayso waxaa la rabaa inuu marka hore guriga yimaado hadduu boos yahay hadduu nus boos yahay hadduu cariish yahay hadduu sar yahay in degmada laga soo kaco la yimaado la arko gurigaa markaa wuxuu qaymo ahaan canshuur looga qaadi karo degmada ay ku soo qorto dadka wada inay qaymeeyaan xaqu ma ahan dawladda waxaan ku arki jirnay in canshuurta warqadda ku qoran lay keeno la yidhaahdo intaana kugu waajibtay iska bixi waana qaymeeyaa markaa cariish baraako sar loo qaymeeyo boos nusboos loo qaymeeyo nuslooto loo qaymeeyo dhibaatada canshuurta aan ku qabno waxaa ka mid ah qofka milkiilaha oo guriga oo iska leh ayaa lagu leeyahay canshuurta inuu bixiyo laakiin qof ijaar u degan oo biib bixiyey oo muxuu ahaa koronto bixiyey oo wax walba bixiyey in maanta la xiro qaladan u aragnaa annaga sababtaa dawladda waxaa laga rabaa qofka guriga iska leh oo milkiilaha inay tiraahdo ay boonadaa u jarto ama ay tiraahdo waa ilaa ha yimaado laakiin in qofka sida ariga camal loo maquuniyo qaladan u aragnaa annaga qoladan cashuuraha iyo dawladda hoose qofka mulkiilaha ah iyo qofka ganacsadaha ah ama kiraystaha ah qof kira laga qaadayaa nadaafad baa looga baahan yahay laakiin in cashuur la sii weydiiyo dhismihii iyo goobtii ah wixii meesha u saaray qofka ganacsadaha ah oo markaa ama ganacsi ah ama isaga lagu leeyahay meesha dhex yaala laakiin dhismaha markay noqoto qofka mulkiilaha lagu leeyahay waana xaaraan lacagtaas qofkaas ku qaadanaya in qofkii kira lagu qaaligareeyo haddana cashuurtii laga dhunto isaga waa khalad waxaan leenahay marka dadka danyarta ah ee tabaalaysan ee cashuurta laga xidhayo gobahooda ganacsiga laga xidhayo ama dhismayaasha laga xidhayo waxaan leenahay samir yeesha saa dambe helisi dirir sagaalaad qofkii warqadda wuxuu taa ma yaqaan warqadda marka loo geeyna waxa la gurigan cashuur laga rabaa bakiro qofkiina macnaha ma baahan qofka milkiilaha xataa waxa laga yaabaa inuu dhuuntaba oo qofka xataa oo dha gurigan aniga ma aqaano ninka jidagana amba maqan yahay amba fasax ku jira hadhowna adaa laga xirin albaabka waxa lagu leeyahay soo bax gurigan qofka la keen hadii kale waa dhibaato kale hadda mar xaafadda aan deganahay waxa ka dhacay sidoo kale dad ilmuhu wata xataa oo yar ala wata hadhow waxa la waraa guriga milyan maxaa dadkan wata idinka guriga degan dad guriga leh waa inay keenaan dadka milkiilayaasha ninka hadii kale kiro qaadana waa iska maqan yahay mogt amba dibadda oo jiraaba sama guriga marka dadka deganaa mar walba dib ku qabo dad kirida inta badanna macnaha waa la handadaa oo waxa la dadka keena amba lacagta baxsh waa dhibaato gooniya marka dadka hantida muguraanka qof waliba inuu difaacdo mar waliba wax looga baahan yahay in qofka milkiilaha difaacdo ninkan kireysta waxba kama gelin Soomaalida sida waxyaabaha maartay adeeg iyo maartay ana taliya haday tahayna waa arin ka gaar weey laakiin muhiimadda iyo maartay hadii xaqda sida maartay nidaamka looga hadlo sharci ahaan milkiilaha canshuurta laga rabaa waa arin sax weey tan yarayno saldhiga la soo dadka lagu soo xareynayo ciyaalka iyo naagayo umulaha lagu soo xareynaa warax kuleelkaas la joogo dhibaatada weyn oo qabno waxa waaye in lacag aan dhiibi karin lagu xujeeyo maalin kasta oo la yiraahdo dhiiba waxna aan dadka loo qoyaab loogu qabanay ijaar fiican hatta guriga laga maqaato asa $100 keena la yiraahdo canshuura tabarna u mahayno Cabdiraxmaan Kambaal Goobjoog Muqdisho in ka badan 280 qoys ayaa waxa ay xaalad nololeed oo aad u liidata ku haysataa duleedka magaalada Muqdisho dadkan waa kuwii laga soo barakiciyay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool 285 qoys oo laga soo musaafuriyay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool qoysaskani wali ma aysan helin meel ay degaan waxaana u dheeri ah in ay ku adag tahay helista cunno ay cunaan qorraxda iyo sidoo kale roobka habeenkii ayaa dheeri u ah duruufta ay ka cabanayaan waxa ay dalbanayaan in gurmad degdeg ah lala soo gaaro maadaama aysan jirin cid wali u gurmatay gudoomiyaha iyo agaasimaha aanu soo qabteen khayr la xasiyo iyaga hadda meesha untadaayna waxaynu iyaga maanta iyaga hayaan kharashka iyaga ku socdo waxa aan haysan male intaan hadda aan haysto dad islaamad oo daraska oo dadka ay soo siiyeen alaabtii iyo macaunta hadda aan dhalay iyo awlaadiisa gaalka ay ku xayriin wax gaar ku soo raacay male marka alxamdulillah aan hadda meeshan ama jooga kaamkan khayr Allah si gabadhan iyo gudoomiyaha aan qabteen oo meel baan haysan iyaga hadda meesha aaw kula afar kula saddex amant iyaga meesha ugu hayaan waa rafaasanahay ilmaheena caruurteena iskuma yaalaan anagoo iska bahdilno hadda gurigeena hatta caruurteena waxaan doonan la waaya ilaa soo baxna la qortana la soo qabtay yaa rafaad nagu filan gaalka cayna lagu soo dhaweey waa soo tagnay baladweynaha gogolno fiis ma sha Allah geelma aan la qale alxamdulillah shukri haddana wadankeena iimaan alxamdulillah taas baan ku mahadsannahay anagoo wadankeena iimaanay wadankeena wax noo qabanay ma sha Allah alxamdulillah waxaan ka codsanaynaa in ay dadkana gargaar u soo fidiyaan meel ay sixdaan dharkii aan ku soo baxnay markuu xiranaay wali iska baana bedelin injineer xataa nagu gashay way waxa iska bedelisma bay sid bade
ya kabayaan ku soo baxay waa kuwan ma garateen marka waxaan ka codsanaynaa maamulkeena dalkeena hooyaan joogna inaan soo dhaweysaan ilmihii adooga gurigan uu soo tagaa mis ilmihii ale aliyaanda ilmihiigan soo wadra ilmahaada waa laga daba keenaynaa kor gaariga in askara iqo qorgami sidii aan gaariga ku koray marka haddana gaalkacay iskugu imaanaan wadaadkeygii laba meel laga soo kala qaaday anagoo rafaadsan oo sigana hal shay oo ku shaqeysta iska dhaafe halkii shay dhar lagu soo qaaday guryaheena asoosaas u buuxo alaabtooda taalo aan ka soo orodnay hooy macaan labadan shay ma wax kale oo ii dheero hadda soo qaatay male xaquuqdayna ilmahayna xuduntoodii wax walba ku aasano aan ku nooleen maanta waxay dhacday in wadooyinkana naga soo qabto oo ka baxa la yiraahdo diinta iyo dadnimada iyo islaamnimadana la eegin oo la yiraahdo reer koonfur baa tihiin reer koonfur maxaa ku yaalo udurka ay qabaan maxay tahay waxna noo sheega ma jirto baxa kuma rabneena dhaafa taas waa la yaabnay dalku waa dalkayno diinta waa diintayno qaasacano taa haddii dhib ku dhaco maanta u gurmadayna waaye dadkii u ordi lahaayaan nahay dadkii u dagaalamayaan nahay dhinaca kale Aamina Aadan Maxamuud iyo Xasan Axmed Faarax waa maamulayaasha kaamka Hiiraan ee degmada Daynile ee duleedka magaalada Muqdisho waxa ay warbaahinta goobjoog u sheegeen in xaalad adag oo dhanka bini'aadanimada ah ay ka jirto kaamkani waxa ay dalbanayaan cid kasta oo gacan ka geysan karta in ay gurmad degdeg ah la soo gaarto kaamkan Hiiraan oo nolol adag ay ku haysato dadkii laga soo barakaciyay magaalada Laascaanood hay'adaha qaaliga ah dawladda magaca leh oo madaxweynaha ugu horeeyo ra'iisul wasaaraha ku xigo gudoomiyaha gobolka Umar Finish oo ku sadeexeeyo xildhibaanyaha gudoomiyalka degmada gudoomiyahayna kaxda muxuu ahaayay Jaafar muxuu ahaayay gacan yariyalkiisa wali waxna soo gaari male codkayga haduu gaaro waxaan ka codsanaa dadka Soomaaliyeed oo tarxiilkii Sacuudi laga sheegi jiray oo kale lagu soo dhiftay oo gidhaashka ah oo qaarkood la soo jir dilay oo waxay muxuu ahaayay maanta haystaan ay salaheen oo calalladii ay guryahooda looga soo bixiyay lagu soo gidhaashay oo halkaas ay ku joogaan waxaan ka codsanaa ganacsatayaalka muxuu ahaayay intii islaam ah oo wax u gali karto oo codkayga maqlayso waxaan ka codsanaa inay wax u galaan waa dad Soomaaliyeed waa masaakiin biyo male badar male waxay xirtaan male hooy male 278 qoys waaye waxay u gali karaan culimada diinka maxuu ahaayay intii codkayga maanta maqasho oo islaam ah oo shahaadato waxaan ka codsanayaa in ummadda Soomaaliyeed oo walaalahood ah oo halkaas ku xiraysan oo banaankan ku barido ina muxuu ahaayay ay wax u qabtaan dadkaanu waxay afka saaran ma haystaan maanta haday qadeeyaan ma cashaynayaan sababtoo ma hayno been idin sheegma hadda xalay casheeyo saaka ma qadi mar quraacan hadarna uma hayno waxaan ka codsanaa haddii dawladda jirto intaanay dawlad ku yihiin inay wax u qabtaan wasiirada xildhibaanada goboltooraha gobolka madaxweynaha hadday ummadda Soomaaliyeed ay wax ku yihiin waxa u qabteen labadii toddobaad ee u dambeysay waxaa duleedka magaalada Muqdisho soo gaaray qoysas badan oo laga soo musaafuriyay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool kuwaas oo xaalad nololeed oo aad u liidata ku haysata kaamka Hiiraan ee duleedka magaalada Muqdisho xildhibaan dalxa oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka ee madaxweynaha haatan uu dhamaaday ayaa waxa uu kamid ahaa guddigii Soomaaliya ku matalayay shirka jaamacadda Carabta waxa uu sheegay in jaamacadda Carabta ay soo dhaweysay go'aankii maxkamadda ICJ waa go'aankii ay ku guuleysatay Soomaaliya kaas oo ay ku guuleysatay kiiska muranbadeedka kala dhaxeeyay Kenya baarlamaanka Carabta waan xubin ka nahay daan nahay baarlamaanka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeedba baarlamaan ay ku midaysan yihiin 22 dal Carbeed dal walibana 4 xubnood ay matasho ayaan runtii nahay afartii anaga magaca Soomaaliya oo qayb galnayna xubin waliba iyada markaa guddi gaar ah oo mowduucyada iyo arrimaha khuseeya dunida Carabta ama gaar ahaan 22kaasi dal looga hadlayo ay soo diyaariyaan afarta guddi oo kamid ah guddiga arrimaha dibadda sidoo kale siyaasadda iyo amniga qowmiyadda Carbeed oo xubin aniga baarlamaanka Soomaaliyeed u matala ama dawladeenaba sidoo kalena 3 xubnood oo ayagana isla baarlamaanka Soomaaliyeed anaga wakiilo ooga ah
ayaa iyagana igu heliya oo guddiyada ku kala jira مثلا maaliyadda iyo dhaqaalaha xildhibaan la yiraahdo geele nooga tirsan arrimaha bulshada iyo dhalinyarada iyo haweenka oo iyadana xildhibaanad la yiraahdo Naciim Maxamuud Gacal iyadana ay nagu matasho halka guddi shuruucda iyo xuquuqul insaanka isagana uu nagu matalo xildhibaan la yiraahdo Ismaaciil Sheekh Cabdiraxmaan si kastaba ma artay guddiyadaasi ku kala duwanaadaan haddana waxay iskugu soo biyashubanayaan hal ma aragtay kal fadhi oo markii ay soo wada diyaariyaan wixii arrimo siyaasad wixii arrimo amni wixii arrimo bulsho ama khuseeya sidaas oo kale shuruuc in fadhiga la yiraahdo aljalsa caama ama fadhiga guud ayaa looga doodaa lagu garfeeyaa guud ahaan intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka guntanka wararka barnaamijka caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Isxaaq Maalin tan iyo intaan barnaamijka xiga habeen dambe xiliyadan oo kale ku kulmi doono nabadgelyo.